waxay runtii FNS mustaqbal wanaagsan u abuurtay kumanaan Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda jooga. waxay kaalintii dawladnimo ay ciyaartay xilli waliba aad u adkaa oo dadku ay aad u wada socotaan. waxay noloshooda bedeshay kumanaan qoys oo Soomaaliyeed ay transform gareysay oo ay dhaqankoodii iyo noloshoodiiba ay wax ka bedeshay. oo de waxbarashadu sidoodaba waa waxa transform gareeya bulshooyinka. hadday faqri ahayn faqriga ka saara, haddii ay akhlaaqda xumeyd akhlaaqda wanaagsan geeya. marka kumanaan iyo boqolaal qoys iyo ubad Soomaaliyeed ayay runtii dhaqan toosisay. boqolaal qoys oo faqiir ahaa ayay noloshooda soo wanaajisay. marka waxyaabaha ay qabatay dalada FNS ay ka mid tahay. waxay qayb lixaad ka soo qaateen sida la sheegay dawlad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo ay la soo garab istaageen. runtii de sida la sheegay wasiirkii ugu horreeyay in ayagu soo dhaweeyeen oo dejiyeen oo ay qalabeeyeen laga soo bilaabo ilaa iyo hadda ayay la daba socdaan dadaalkaas. waxay ku guuleysatay inay ka badbaado cudurka ragaadiyey dadka Soomaaliyeed oo ah inaan waxba la isku yeelan karin. wax kastoo la isku yeeshana inuusan cumri dheeraan, cumrigiisu aada u koobto. kuba dar xataa rabta dowladnimadana ku daray inay dowladnimadii Soomaaliya aad ogtihiin inay muddo kooban inay ku duntay maadaama la isla wadan waayey wixii. ayadu inay 25 guuradii hadda la marayay waa waxyaabo ku cusub waay. sidaa darteed waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo oon hambalyeeyo madaxda maanta joogta FNS, madaxdii hore, aasaasayaasheedii, sidoo kale shaqaalaheeda, maamulada iyo macallimiinta iyo ardayda iskuullada hoostaga dalada FNS dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 25aad ee dalada FNS. waxaan rabaa inaan idin muujiyo commitmentiga dawladda. haddii ilaahay yiraahdo inta la sheegay waa ku dadaalaynaa inay waxbarashada Soomaaliyeed inaan ahmiyad siino way naga go'an tahay. inaan siinayna waxaad ku garanaysaan dee hadda labadii budget ee dejinay hadda xukuumaddu dejisay labadaba min 3,000 oo macallin aan ugu jirta ayadoo weliba duruufo aad u adag yihiin. inaan dee dadaalno oo waxbarashada ku dadaalnayna Farac Cabdiqaadir inaan keennay oon wasiir uga dhignay oon dhahnay adiga odayo wixii aad soo aasaastay sii wad ayaa iyada lafteeda ayaa daliil u ah. annana insha Allah waa kusii garab taaganahay. meelaha inaga dhimanaya la sheegay oo vocational training iyo waxbarashadii hadda la sheegay ay ka mid tahay iyo sidaan u tayeyn lahayn waxbarashadeena guud ahaan. mashquulkaas wasaaraddu way ku jirtaa. waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaynu waqti dhow bulshadeenu ay waxbarasho fiican heli doonto. marka hore access in loo helo waxbarashadii oo mid hadda ugu darana oo ay malaayiin arday oo Soomaaliyeed oo waxbarasho gaadhay weli ay banaanka inaga taagan yihiin. haddana inaan ku garab wadno inaynu farsamadii iyo waxbarashadii farsamo inaynu ayadana xoog saarno ayaan rajaynaya.